No. Naima Akhtar? Yes, Naima is here. She's a good individual effort and hard work. Hard work. Good girl. MashaAllah. Habibu Muhammad. Muhammad Abdul Qadir Habib. No, here. High achievement. Fahia Abdurrahman Yusuf. Khalid Nuh. Khalid Nuh is not here. Omar Sheikh not here. Liban Sheikh. Abdurrahim Ahmad not here. Abdul Karim. Akram Ismail. Where's Akram Ismail? Who are you? Akram Ismail. Qadar Abdul Qadir? Not here. Selma Nur Ahmad is not here, of course. Tagwa. Give it to him. Qadar Abdul Qadir Hassan? Qadar, mashallah. Qadarul Ilahi Ahibbati. Salma Nur Ahmad. Salma is not here. Safiya Taha. MashaAllah. Now, these are the Good Reader Awards. How about Ramla Sado? Ramla Ado. Is Ramla here? She's gone home. She's a good one. Maryam Bana. How many certificates did you get, Maryam? MashaAllah. Say MashaAllah. 3 certificates so far, MashaAllah. Hi. Salma Abdullah. Kabir. Let them pay. Abdurrahman Ahmed Muhammad. Khaif Khalid for good conduct, good behavior and good manners, MashaAllah. Where is Khaif Khalid? MashaAllah, right hand. Certificate so far, Khaif. 2, MashaAllah, say MashaAllah. Mumtaz Zakaria. And Abdurrahman Ahmed Muhammad. 1 certificate for Abdurrahman. It's coming, no, not this one. Not this one. Abdurrahman Ahmed. Not this one. Mumtaz. This is for Abdurrahman. Go. Hi. Osman. maxamed taha waxa uu odayaasha xaafadda oo run ahaantii barnaamijkan aad iyo aad u qabanqaabiyey waxaana uu ka mid yahay odayaasha sida muxaadarada sida wanaagsan u soo gudbiyo muxaadarooyinka haddaba daawdeel waxaan uu ka mid ahaa ka qaybgalayaashii masaajidkan ku leeyahay dadkii qabanqaab xafladda waxaana uu ka mid yahay odayaasha xaafadda waxaan ka waraystay sida uu arka munaasabadan بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين عما بعد مركو هوريس وحام حد علينا يونيفرسال تي في وما أنت جعان وين نقصي ميل كستا مر الله لمركب مناسبات عقبنا افتتاح مسي يعني حق لنا كستا نخط قرآنك وحبرشدا وقرب وين نسينا كاميرا ده بعد ما حسنتها marka uu warayso university midda kale waxay kan waa is the very important dadka ma yaqaani sababtu meesha loo yimid ee wadanka shisheeye waxay u maleynayaan inay refugee ay yihiin mise dagaal inay yihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala wax kasta wuxuu ku sameynayaa xikmad لأن دتك مسو دولي لها ماشي ما إيمانين حديث أنت قال كان جرين ما حد من الخيار دم وحي وإيمانه إلهي هرتي سوي حليه ما نكرت ما نحل كرت وايو رسالتنا مسو قارن
والله سبحانه وتعالى يقول لئلا يكون للناس إلى الله حجة بعد الرسول إلهنا وحو عمر قاضي وحو يري وما كان معنا حتى نبعث رسولا ومد رسالة بان أو رسالة أدوك أدقارسينيس ميل كستا أدجوتين مشارق الأرض ومغاربها انت سوحانا كدريا ددك يي أمالين دقال كان إيو يعني مارتين كلا عرض كان إيو مصيبة حكمة إلهي كسعطوي إنا رسالة أدقارسين ميل كستا شكرا جزاك الله خير weli waxaan ku guda jirnaa waraysigooda waxaan rabaa inaan waraysta qaar ka mida sida ay u arkaan jooji munaasabadan rabaa inaad ka hadashid السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا كوالله مجا جود أهان سومالي ده كسوق قيب قشي حفلة دان اللوقبتي ليتون ستون هاي رود بقول تواتنيكو صادرات ده وحاد الله كسوق قيب قل كان أو كسوق قيب الوالدين تا يو أنت كسوق قيب قشي وحن لنا هاي فرحدان أو افتتالك أو مدرسة الحري iyo ramadaanka la soo dhaweynayo marka waxaad leenahay baariku ka soo qayb gashay waa marxabisiin inta maqan Allah noo keeno bishaara inoo tahay wassalaamu calaykum waraxmatullaah muddadii aan joognay waxaan waraysanay waalidiinta qaar ka mida Marin Ismaaciil waxa ay ka mid tahay waalidiinta aad iyo aad ugu xiran masjidkan caruur fara badan oo qaar eeda u tahay iyo qaar iyadu ay dhashayba way joogaan waxaan doonayaa sida ay masjidkan iyo tarbiyada islaamka ah intii ay joogtay munaasabadan waxyaabaha runtii ay aad ula yaabtay inay wax nooga sheegto بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم هدي أن كشكاية مدرسة الرحمة ومدرسة آد قيمة بدن ومدرسة يعني حافظ أهان هدا إن ير أي فرنتهاي إن تاسير أي فرنتهاي وحان كلا كل مني يعني علمي بدن أي علمه نوغا فايديستين يعني علمه هري أن وحبو أقونين أيا كفايديستي دون والبابا marka madrasadan waxaan dhihi lahaa waa madrasad aad u fiican oo aan ka faa'iideysanay diinta islaamka naga caawintay xagga ilmaha iyo waxbarashada salaada aadaabul islaam wax walbaba waa ka faa'iideysanay marka waxaan dhihi lahaa dadka xaafadda iyo dadka ka dhowba eriyada inay nagala soo qayb galaan madrasadan si waxtarkeeda iyo waxqabadkeeda ay noola arkaan iyo faa'iidada ay u leedahay ilmaha islaamka oo wada ku koray waxaan dhihi lahaa madrasadaas laga soo qayb galo waa madrasad aad u faa'iido badan